بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ إلهي سبحانه وتعالى أجر أن نسوكو بكر إلهي سبحانه وتعالى كسيو. شيخ waxaa jira dhowr su'aalo oo dadka ku xiran page-ka masjidka sigiska ay ku soo qoreen. Su'aasha koobaad waxay leedahay waxa iga wareersan dabcan waa gabar waxay leedahay waxa iga wareersan caadadii oo labadii ama saddexdii maalinba way iga timaadaa. dhiig furana ma aha oo waa caadadii waan aqaanaa. sheekhow sidaan u soomaa? بسم الله الرحمن الرحيم haddii aad hubto inay caadadii tahay intay caadadaasi jirto mana soomi kartid mana salaadi kartid ninkaaguna kuma banaana caadadu sax way wareertaa inay wareertana inta badan waxaa keena waxyaalaha ay isticmaalaan dumarku oo u badan waxyaalahan ama dhalmada lagu kala fogeeyo ama dhalmada lagu gooyo waxyaalahaas inta badan keena inay caadadu wareerto المهم haddaad hubto inay tahay caadadii oo wareersan oo ku haysa intay ku hayso mana soomi kartid mana salaadi kartid ninkaaguna kuma banaana sidii adoo caado qabo oo kalaata wallahu a'lam. jazakallahu khayran. saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh anoo sooman madaxa ma iska toobi karaa? masalada toobinka waa masalo khilaaf ku jiro fuqahaada dhexdooda soonka ma jabiyaa mise ma jabiyo waxaa la mid ah dhiig badan in jidhka laga saaro xadiid baa nebigu sal alla alay wasalam sugan uu leeyahay nebigu wuxuu soo maray laba nin oo istoobaya kadibna wuxuu yidhi aftara alxaajimu waalmaxjuum kan toobaya iyo kala toobayaba waa afuray soonkii waa ka jabay xadiidkaasi fuqaha badan baa ku tegey oo inuu toobinku soonka jabinayo xadiid kalaa jira oo anas warinayo oo uu leeyahay arrintaas oo inuu toobinku soonka jabinaya waxaa ka dambeysay nebigu sallallahu alayhi wasallam ruqseeyay oo ogolaaday dadka sooman inay istoobi karaan xadiid kale jira bukhariga ku yaalo nebigu uu leeyahay nebigu sallallahu alayhi wasallam saxaabigu uu leeyahay nebigu uu istoobay isagoo sooman marka la soo ururiyo wuxuu noqonayaa mas'alada toobinka iyo dhiig in la iska saaro inay soonka jabisaa waa laga dambeeyay oo waxaa ka dambeeyay in la ruqseeyay oo la idmay sidaas daradeed soonka ma jabinayo toobinka iyo dhiig jirka ka baxay toona sidaas ila xoog badan waa mas'ala khilaafiya wallahu a'lam. jazakallahu khayran. sheekh saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan ka boogoobay afka oo nabarra iga soo baxay dhakhtarkiiba wuxuu ii soo qoray dawada lagu luqluqdo marka anoo sooman ma isticmaali karaa dawada? haddii ay tahay uu luqluqasho kadibna aad iska tufayso dhib ma laha waxaad ku dadaalayay inaysan hoos u gudbin oodan liqin leanno afka waxyaalaha soonka jabiya hadduu afka galo oo ka soo noqdo soonka ma jabinayo waa luqluqashada biyaha oo kale markaan weysaysanayna waa luqluqanaynaa biyuhu weysada way jabiyaan maalan cunto intaad dhadhamisay aad tijaabisay oo kale aad iska tuftay shay maalan afkaaga galood soo tuftay soonka ma jabinayo marka hadday tahay mujarad luqluqasho kadibna aad soo tuftay hoosna aan u gudbin oodan liqin soonkaagu waxa ma noqonay waad samayn kartaa wallahu a'lam. jazakallahu khayran. saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waa gabar baa soo qorta waxay leedahay aabbahay in badan ma soomin mana salaadin wax cudurdaar ahna ma lahan marka sheekhow ma ii sheegi kartaa qaab aan ugu gudbin kara soonka iyo salaada maxaa yeelay kurba ayuu igu hayaa? hal waaniyo loo naseexeeyo hidaayada ilaahay baa haya ruuxan salaad tukanaynin oo aan soomaynin muslim ma aha salaada kaliya tegitaankeeda nabigu ku tilmaamay inay gaalnimo tahay soonkiina haddana hadduu ku daray uusan soomaynin ruuxaasi muslim ma aha laakiin waxaa waajiba in loo naseexeeyo oo la waaniyo oo si alla sidii wax loogu sheegi karo wax loogu sheego lagu dadaalo ilaahay baa hidaayada iyo hanuunka haya laakiin waxaa dhici karta in ilaahay soo hanuuniyo hidaayada ilaah baa haya yani hadal dabacsan oo aan adkayn oo muxuu ahay sasab ku jiro oo xikmadaysan mar walba waxa loogu gudbiyo maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala fircoon oon ogeyn inuu ilaahnimo sheegtay ana rabbukum alaclaa yidhi
ayaa ilaahay tabaaraka watacaala markuu muuse iyo haaruun dirayay calayhima wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu u diray wuxuu ku yidhi faquulaa lahu qawlan layinan lacalahu yatadakaru faquulaa lahu qawlan layinan yacni hadal dabacsan ku dhaha inuu waana qaataa dhici karta ilaahay waa ogyahay inuusan waana qaadanin fircoon oo gaalnimo ku dhiman doono laakiin rajagelin baa meeshaa ku jirta ruuxa sidiisa marka lagama quusto si kastoo uu dembi badan yahay si kastoo uu khariban yahay ruuxa inta uu nool yahay waa suurtagal in ilaahay hanuuniyo marka ku dadaala un insha allahu tacaala nacam sheekh ilaahay ha ku barakeeyo saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekhana af carabiga ma garanayo ilaahayna inaan u dan sheegtaan rabaa af soomaali ilaahay ma ugu dan sheegan karaa anoo sujuudsan ma ku ducaysan karaa masaladaasi marar badan bay soo noqnoqotay af aan carabi ahayn salaada dhexdeeda ma lagu ducaysan karaa horaan waxaa ila xoog badnayd inaysan runtii waxaan luqa carabi ahayn salaada gudaheeda aan lagu ducaysan karin gadaal dambe baxti dheeraadoon sameeyey masalada khilaaf baa ku jira saddex ra'yi baa la isugu khilaafsan yahay qole waxay leeyihiin sideedaba ma dhici karto in luqad aan carabi ahayn salaada dhexdeeda duco ama si kaleeta ay usoo gasho ra'yina wuxuu leeyahay maya xataa hadduu carabiga yaqaano wuu ku ducaysan karaa luqooyinka kale ra'yina wuxuu leeyahay maya haddii uusan ruuxu uusan garanaynin carabigii uu xaajadiisa ilaahay ugu bandhigan lahaa salaada dhexdeedana khaasatan markuu sujuudsan yahay wa aqrabu maa yakuunu alcabdu ilaa rabbihi yacni waqtiga rabbigii ugu dhow yahay way ducadana ugu dhowdahay in la aqbalo faqaminun an yustajaab waa xilligay ugu dhow yahay in ilaahay ka aqbalo marka halkaasuu rabaa inuu baahidiisa iyo duruuftiisa ilaahay u sheegto oo baryo luqadii carabiga ahayd ee ku saaciidayn lahaydna ma garanayo waxay leeyihiin xaaladaas iyada oo kale culimmadu waxay leeyihiin waa loo ogolyahay markaa inuu luqad kale oo aan miduu garanayo oo aan carabi ahayn inuu ku ducaysto ra'yigaas baa marka dhexdhexaad ah qolada wada diidan iyo qolada wada ogol iyo qolada cidda uun aan carabiga garanaynin u ogolaanaysaa saddexaasaa laysugu khilaafsan yahay tana marka dhexdhexaada leanna waxaa jirta ruuxu markuu wixii laasimka ahaa waayo marar badan bay shareecadu waxay u ogolaanaysaa wax kaley siinaysaa xataa waxay leeyihiin waa ka nebigu sal ly slm ruuxu markuu faatixada uusan aqoonin yani adkaar kale loogu bedelo ilaa faatixada uu ka baranayo laakiin waxaan dhihi lahaa maadaama hadalba galay way fududdahay in ducooyinka carabiga la bartay jawaamicda ha lagu dadaalaan dhihi lahaa insha allahu tacala iyaga hala barto wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh awal masaajidii ayaan taraawiixda u aadi jirnay masaajidiina waa la xiray laakiin xaaskayga ayaa qur-aanka xifdisan iyada ma i tujin kartaa hadday maya tahay aniga inay i tujiso caruurta ay dhashay oo wiilal ay ku jiraan miyay tujin kartaa xadiis baa jira abu daawuud iyo keyrka ay warin ahlu sunanka xadiidu muwaraqa waa xadiis sugan muwaraqa gabadh waxay ahayd saxaabiyaadkii hore oo qur-aanka baratay ninkeeda iyo caruurteeda iyana maysan aqoonin qur-aanka qadarkii la rabay ama marka nebigu wuxuu ku yidhi wuxuu u ogolaaday ama u idmay in ay ehelkeeda guriga inay tujiso maadaama iyadu qur-aanka ay taqaano halkaasay fuqahada qaarkood ka qaadanayaan haddii ay maamada gurigu qur-aanka taqaano ninka iyo caruurtuna aysan aqoonin in ay tujin karayso oo xadiiskaas umuwaraqa ee sunanka ay sunanku wariyeen oo xadiis saxiixa ah ayay u daliishanayaan culimada qaar ka mid ah laakiin waxaan dhihi lahaa haddii xataa qur-aanka wax uga bilaaban yihiin oo qur-aanka uu sixi karayo misxafka si fiican uga akhrin karayo hadda way fududdahay yani waxa weye mobaylkayba qur-aan ku jira ha ka tukado isagu ha tujiyo yani waxa weye misxafkana qur-aanka ha ka akhriyo hadduusan ka akhrin karaynin oo caruurtiisa ay jiraan kuwa qur-aanka yaqaana iyagu ha tujiyeen hadday intaa midna jirin maamadu ha tujiso lanna isaga qur-aankii ma uu garanayo qaar ahaan hadday salaadu salaad tahay salaad ama taraawiix ama salaad sunna a tahay kuma sii jirto wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayr aljaza saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekhana salaada witirka in 3 rakaco la isku xiro oo nitaxyaad loo dhaxaysiinin iyo in la kala jaro labaduba miyay soo aroortay midna ma laazimi karaa ama inaan 3daba isku xiro
ama aan kala jaro hal xabo ma laazimi karaa labaduba horta way bannaan tahay witirka inaad hal ragcada gooni ka dhigto waad heli kartaa 3 isku xidhan inaad ka dhigto waad heli kartaa 5 isku xidhan inaad ka dhigto waad heli kartaa 7 isku xidhan waad ka dhigi kartaa 9 isku xidhan waad ka dhigi kartaa kulli dalika nabiga ka sugan tahay sallallahu alayhi wasallam haddii aad kala goysood ka dhigto 2 ragcadood oo gooniya iyo hal ragcad oo gooniya waa sida fadliga badan oo dee amal ziyaada baa ku jira tahiyaad ziyaada iyo waxbay wadataa haddaad isku xidhana nabiga ka sugan tahay sallallahu alayhi wasallam laakiin tahiyaad dhexda ma gelinaysa maqribka ugu ekaanin marka way banaantahay kulli haddaad mid kamida ku gaabsato waad heli kartaa laakiin sida fiican haddaad wada garanayso sunnooyinka noocaasa ee nabiga ka soo arooray ee khiyaarka ah waxa fiican inaad kolba mid qaadato si aad sunnooyinkii ugu wada dhaqanto mar muxuu ahaay xiriiri mar kale go si alla sidii muxuu ahaayay si aad sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam kulli aad ugu wada dhaqanto ajirkeedana u wada hesho saasa fiican laakiin hal midun haddaad qabsato taa uun ku dhigtana dhib ma laha waa la ogol yahay macna naam jazaaka allahu khayran sheekh saailkan kale wuxuu leeyahay xadiis nabi ayaa wuxuu ahaa ruuxii safka salaada gooyo ilaahay ha gooyo ruuxii xiriiriyana ilaahay ha xiriiriyo hadeer masaajida kuwada lagu tukado ama meelaha qaar aan ku tukanno dadkii way kala durkaan oo iskuma soo dhawaadaan marka soo lagama yaab inaan xadiidkaas habaarkiis uu nagu dhaco waxaa ka maqan su'aasha soo qoray shariicada axkaamteeda ayaa qaarna waxay ku saabsan tahay xaalatul ikhtiyaar qaarna waxay ku saabsan tahay xaalatul idiraar ama xaalatul xaaja markii ayna wax mushkila ah jirin oo duruuftu caadi tahay safafka in la isku dhajiyo waa laazim waa waajib maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis badan baa kaga soo aroortay in dadku isku dhagaan isku dhawaadaan waa amri jiray muxuu ahaay haddii safafku iskhilaafaana qulubtu iskhilaaftaa ka dhalan habaar baa ku yimid marka waa in safafka la isku dhaweeyo markay duruuftu caadi tahay hadday timaado duruuf keenaysa in dadku kala fogaadaan jiray kala qaadayaan xanuun baa laga baqay muxuu ahaay khatar kala imaanaysa cabsi kala timid markaasi waa xaal istinaa'iya waay xaaladda noocaas oo kale marka shariicadu rukhas bay bixinaysaa waxay keenaysaa ay raadinaysaa qaab salaadii jamaacadana lagu xifdiyo dadkii u wada tukadaan mafsadadan iyo dhibkan laga baqayana lagu baajiyaa la raadinaya markaas oo kale way imaan kartaa ijtihaadaadkan ah in la yiraahdo hal wada tukado wixii laga baqayayna si la isaga ilaaliyo looga taxadaro hal kala durko markaasi xaalad caadi ma ah nusuustani marka waxa weeye waciidka eedaga soo aroorayso waxay ku soo arooraysaa xaalad ay duruuftu caadi tahay ama haday caadiga ka baxdo duruuf ay soo kordho istinaa'iya timaado marka iyadu ahkaamteeda ay qaadanaysaa taysiirkii shariicada ay aadaysaa waxay aadaysaa nusuus kale oo markaas maxay wiqaaye iyo ku saabsan iyo halkaas ay marka aadaysaa nusuus kale aadaysaa tii caadiga ahayd markaas waxa way ka baxaysaa oo waciidkaasi marka ma qabsanayo maadaama ay yani nusuus kale ay markaas ku amal falayaan nusuustii taxadarka nusuuskii cabsida nusuustii مثلا xaajada iyo daruurada xagga la aadaya marka wallahu a'lam jazaaka allahu khayran su'aalta u yara dhow waxay leedahay waxa jira xadiis dhahay ruuxii aan tukan 3 jimco oo isku xigta qalbigiis ayaa engagaya hadeerna masaajidii way xiran yihiin ma laga yaabaa inuu qalbiga engego tii hore la mid tahay oo marka ay jumcada ay waajib kugu tahay waa markaad heli karto meeshaad ku tukanaysi aad tukan karto waa haddii aad meeshaad ku tukanaysay la waayo masaajidaad ku tukata la waayo shuruudaheedii la buuxin waayo marka kadib jumca kuguma waajibaysee duhur baa kugu waajibaya laana wax weeyaan waciidkan saddex jumca ruuxay dhaafto iyo jumcada ruuxii ka taga waa goorma waa markaad kari karto waa markaad awoodeedii leedahay waa markaad heli karto waa haddii aad heli weydo ama aad weydo ama ay suroobi weydo marka laa yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa karam bay ku xiran tahay iyo awood bay takaaliifta shariicadu ku xiran tahay haddii awoodeedii aad weydo ama duruufteedii ay saamixi weydo ama duruuftu ku saamixi weydo marka kuma mukallaf kuma tiid laguma haysto marka waxaad qaadanaysaa tii ay shariicadu kuugu bedeshay baad marka ku bedelanaysaa oo ah inaad duhurkii tukato haddaad heli karto meelaad ku tukato jumcadii
oo markaasi suurtagal ku ah markaasi waxa weeye adiga khiyaarkaaga marka aad kaga baaqatood ku dayacdo marka waciidku waa ku qabsanaya marka wallahu a'lam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay aabbahay baa wuxuu u dhintay cudurkan coronavirus wuxuuna ka tegey alaabo qaali ah waxaana la dhashay wiil aan qaangaarin dadka qaraabada ahaana waxay soo ururiyeen lacag loogu talagalay tacsi lacagtaa tacsidoo soo aruurtay duqa miyaan u sadaqayn karnaa mise waxay gelaysaa dhaxalkii haddii ay dhaxalka gasho oo la yidhahdaa dhaxalka ha loo qaybiyo wiilkan yarka ee aan qaangaarin ma waxaa la sugayaa ilaa uu ka qaangaaro mise hadda isagoo yarba dhaxalka waan qaybsan karnaa waa dhowr masalo isa saaran waa midda koowaad ee horta odayga dhintay waxa loo soo ururiyey hadday tahay intuu noolaa wax loo soo ururiyey oo soo ururay hadduu yahay noloshiisa ku soo gaadhay isagaa iskale waana laga dhaxlayaa markuu dhinto hadday yihiin wax la soo ururiyey geeridiisa kadib meyd wax ma mulkiyo dadkii soo ururiyey niyaday ugu talagaleen baa markaa lagu bixinayaa hadday dadkii uu ka tegay ugu talagaleen iyagaa iska leh hadday dadkaa qaar ka mida u soo ururiyeen ayagaa iska leh hadday kulli ugu talagaleen kulligood baa qaybsanaya dhaxal ma aha markaas dhaxal ma aha sidii dadkaa soo ururiyey ee ugu talagaleen mucaawano hadday ugu talagaleen mucaawanadaa cidday ugu talagaleen baa qaybsanaysa leanna meyd wax loo soo ururiyey markuu dhintay kadib wax la soo ururiyey ma milkiyo hadduusan milkiyinna lagama dhaxlo taa waa masalada labaadi wax weeye dhaxalka caruur aan qaangaadhin hadday joogaan ma la qaybinayaa mise intay qaangaadhayaan baa la sugayaa maya waa la qaybinayaa ruux walba xaqiisa ayuu qaadanayaa caruurtan aan qaangaadhinna cidda mas-uulka ka abaa waxooda loogu dhiibayaa bal iska dhaaf caruur aan qaangaadhin oo bannaanka joogta iska badaaye ilmaha uurka ku jira lala sugi maayo qaybinta dhaxalka qaab waxaa jira loo qaybiyo oo ilmaha uurka ku jira in la garan maayo ma wiilbaa ma gabadhbaa ma nabad buu ku imaan ma meeshuu ku dhiman lama oga laakiin qaab baa jira cilmiga faraa'idka zaka loo qaybiyo dhaxalka loo qaybiyo oo wixii isaga loogu talagalay ee ku soo hagaagayay ayaa meel la dhigaya kadibna waa la sugaya inta kale dadkii iska lahaa la dhihi maayo kan uurka ha dhashay ma qaybsanaysaan kan haqaan gaadhay waad sugaysaan la dhihi maayo fawran markuu meydku dhintaba dadkii xuquuqdan iska lahaa waa loo qaybinayaa inay qaybsadaan oo ku kala baxaan hadday iyagu sugayaanoo ay isugu sii jirayso waa khiyaar way heli karaan laakiin ciddii tidhaahda waxayga hallaysiiyo anigu ma sugaye la dhihi maayo hebel haqeen gaadho labana la dhihina maayo uur baa jira ha dhasho qaabkii shareecadaa taqaana qaabkay u qaybin lahayd waa la qaybinayaa markaaba wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh waxaa jira masjid laga dhisiyey magaalada muqdisho odayaashii guddiga ahaa way dadaaleen laakiin weli waxbaa ka dhiman dhismihii masjidka odayaashii guddiga ahaa waxay istuseen inay u kaashadaan culimo kale oo la ururisa lacagta markay lacagta lasoo ururiyana baasinta laga siiyo culimmadii lacagta soo ururisay arintaana waxaa laga isticmaalaa inta badan tiifiyada soomaalida in culimada wax soo ururiyey lacagta masaajidka soo ururiyey baasinta laga siiyo diinta maxay ka qabtaa haddii ay tahay dad ujara oo la dirsaday laba arrimood bay kala tahay inuu ruuxu marka hore culimonimo iyo weji samafal iyo khayrdoon baan ahay iyo ilaahay dartii baan u shaqaynayaa inuu ku howlgalo kadibna markii wixii soo yimaadaan uu wax sheegto iyo inuu marka horeba nin shaqaysanaya yahay oo uu yidhaahdo aniga shaqadan waan gelayaa aan gale waxaan u baahnahay oon shaqadan ku galayaa waqti baan bixinayaa juhdi baan bixinayaa waxaan yacni waxaas iyo waxaasaa ama wax joogta ama wax baasantee waxaa hallaysiiyo labadaasay kala tahay hadduu ruuxu marka horeba ujuuro lagu dirsado ama mushaar la siinayo ama muxuu ahaaye wax la isku ogyahay lagu heshiyo saa uu ku howlgalo haddii wuxuu ku howlgalay buu leeyahay laakiin waxaa laga maarmaana dadka wax laga soo ururinayo wax laga soo qaadayo waa inay fahansan yihiin ama ay og yihiin xoolaha laga ururinayo qaar ka mida inay u bixi doonaan kharash noocaas u bixi doonaan
waxaan aniga kolley xaraj badan aan ka dareemayaa in dadkana loo muujiyo in wadaadku uu muxsin yahay oo ilaahay dartii u shaqaynayo maamulkan masaajidkuna sidoo kale muxsin oo ilaahay dartii u shaqaynayo dadka wax bixinayana aynan ogeyn oo laga yaabo hadday ogaan lahayn inay wax qaadanayaan inaysan wax bixiyeenba dhici karayso meeshaasi waxoogaa waxay igula jirta shubha igula jirta saas daraaddeed in la caddeeyaa fiican ciddii la dirayo ciddii wax soo ururinaysa ciddii shaqo gelaysa inay caddahay ujuuraday qaadanayso oo ay wax cad iyo heshiis cad uu ku howlgalo ididkiisa wuxuu helo waa nin marka adduunkiisa u shaqaysanaya waa nin adduunkiisa u shaqaysanaya shaar qaadanaya basanti qaadanaya wax raadiisa juhdigaa bixinaya wey sidaana wax ku qaadanaya wey wax laysku ogyahay buu ku howlgalaya laakiin marar badan waxaa dhacda in wixii inta yani la dado layska howlgalo hadhowna ay dhici karayso xoolihii dadweynaha laga soo ururiyey masjid iyagu ay u bixiyeen inteeda badanba inay kharash u kacdo oo wadaadkii wax ururinayay telefishinkii wax ka ururinayay muxuu ahay qolihii kaalmaynayay kulli wixii in la qaybsado kadibna meeshii wax loo ururinaya wax ku hagaya inuu yaraado hadda suurada noocaas oo kale waayahan dambe weliba aada u soo badatay waxaa aniga taqriiban qanaacadayda inay khaldan tahay baa ii muuqata wallahu aclam jazaaka allahu khayran laba su-aalood oo ugu dambeysa su-aasheeda koowaad saa-ilkan wuxuu leeyahay sheekh anoo salaada ku jira ayaa hadal iga soo fakaday soomaali ah si kadis ah anoon is ogeyn marka salaaddii may iga jabaysaa wixii aan ku talagal ahayn salaada ma jabinayo waquumuu lilaahi qaanitiin aayaddaa markay soo degtay baa aamuska la faray saxaabada ridwaanullahi caleyh haddii ruuxa jahli u geeyo ama kelimadu ka soo boodo ama halmaan isagoo ishalmaansan ka soo baxdo salaadiisu jabi mayso waxaa daliilu ah xadiidkii mucaawiya ibn xayda mucaawiya nin saxaabada ka mid u ahaa nebiga iyo saxaabadiisuu la tukanayey kadibna wuu hindhisay nin baa hindhisay ninkii markuu hindhisay buu alxamdulilah yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi yarxamuka allah salaaduu ku jira markuu u duceeyey ayay dadkii fiirfiiriyeen markuu arkay dadkii soo fiirfiirinahayay salaad ku jiray markaasuu wuxuu yidhi hooyadiin idin weyday maxaad iga fiirinaysaan maxaa iga fiirfiirinaysaan buu ku yidhi wuuba sii hadlay marka markuu salaaddii nebigu ka baxay sal alla alay wasalam ayuu u yeedhay markaasuu wuxuu ku yidhi salaada looma ogola hadal muxuu ahaayey si fiican buu nebigu u tacliimiyey sal alla alay slam oo markuu leeyahay weligay ma aanan arkin macallin ka fiican nebi maxamed sal alla alay wasalam marka nebigu waa toosiyey salaaddii soo celi muusan dhihin salaadda dhexeedu ku hadlay leanna wax weye waxaa u geeyey aqoon darra u geysay marka haddii ama hadalkaasoo fakado ama aqoon darra kuu geyso ama halmaan kuu geeyo salaadu jabi mayso insha allahu tacala wallahu aclam su-aasha ugu dambeysa barnaamijkeena galabta waxay leedahay sheekh gows ayaa xanuunaya waxay leedahay aabbahay oo dhintay xoolihii uu ka tegey ayaan masaajid ugu dhisnay intaan dhaxal ahaan loo qaybinin arrintaa ma saxba xoolaha hadduu meydku ka tago isaga wax looguma dhisi karo loomana sadaqayn karayo allaahuma hadduu dardaarmay oo uu 3 meelood meel buu xaq u leeyahay inuu dardaarme haddii uu dardaarmay wixii uu dardaarmay dardaarankii waa laga fulinayaa oo 3 meelood meel hantidiisa ah wixii ka siyaadsan maya hadduusan dardaarmin iyo wixii 3 meelood meel ka siyaadsanba dhaxal weeye maadaama ay dhaxal tahay oo markuu naftu saa uga baxdaba milkiyada isaga waa ka wareegaysaa dadkii dhaxalkiisa lahaabaa milkinaya xoolahan oo isku leh iyagay marka la jirtaa iyagu wixii milkigii ku soo wareegay ee dhaxal u qaateen hadday markaa u sadaqaynayaan way heli karaan waa hadday ehel u yihiin tasarrufka noocaas hadday ehel u yihiin oo ay dad waaweyn oo qaangaadha yihiin hadday qaangaadh yihiin way u sadaqayn karaan way u bixin karaan xoolahoo dhan bay u sadaqayn karaan hadday uu ku jiro caruuraan qaangaadh ahayn hadday ku jirto lama bixin kara iyaga waxooda lamana sadaqayn karayo aabbana looma sadaqayn karo hooyana looma sadaqayn karo dhimatay caruurta yaryarkeen qaangaadhin waxooda ayaga iskale markay qaangaadhaan ayagu ama ha sadaqeeyeen ama iyagu ha isticmaalaan laakiin dadka qaangaadhka ah wixii dhaxal ku soo hagaagay way u sadaqayn karaan
dadkii xoolahaasi asalaan ka soo jeedeen ama cid kaleba way u sadaqayn karaan wixii iyaga ku saagay dhaxalkooda ah wallahu aclam daawadayaal su-aalihii aad noogu soo dirteen bejka masjidka sigiska iyo tafsiirkii ka horreeyeyba ee uu noo soo jeedinayay sheekheena sheekh maxamed cabdi umal xafidahu llahu tacaala galabtu annaga intaan dib ugu kulmi doona barnaamijkan oo kale ah waxaa idinkaga tegaynaa sida in nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh